بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسود وهذا وراركي وجودن بيجي جمهورية ذلك يوكرين هي دجالك كل عيها القيمة أي كلام مريان مدحوينها يوكرين أو هذا لي يدك كلام مدحوينها فلاديمير بوتين أو يسكن هذا لي كواسو لبدو دبيس هذين كسود وهذا برامجك روشكا ayaa weerar baan ku qaaday guud ahaan Jamhuuriyadda Ukraine sida uu sheegay madaxweynaha Volodymyr Zelensky waa madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay weerar uu Ruush ku qaaday in lagu dilay 4 qof halka madaxweynaha Russia uu sheegay 4 qof ay sheegayaan inay yihiin kuwa aan waxba kama jiraan ahayn dhanka kale wuxuu aadeen u soo jeediyay Ukraine oo uu sheegay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Jamhuuriyadda Ukraine inay duqeeyaan 2 saldhig oo cirka ah oo ay leeyihiin ciidamada Ruushka kuwaas oo ku yaala gudaha Ruushka dhexdiisa halka dagaal ka socdana u jira 100 kilomitir dhanka kale Ukraine ayaa ku eedeysay Ruushka in uu burburiyay guryo ku yaala koonfurta bari isla markaana uu garaacay xarumaha korontada meelo badan isniintii gantaalo cusubna uu ku riday halka Moscow ay sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay weerareen 2 saldhig oo cirka ah oo ay leeyihiin ciidamada Ruushka oo u jirta 100 kilomitir oo kaliya jiida hore imika dagaalku uu ka socdo dhanka kale gantaal cusub ayaa maalmahan laga sugayay dalka Ukraine waxa uu na dhacay xilli la doonayay in xaaladda degdega ah la soo afjaro iyada oo burbur hor leh uu sameeyay duqaymaha ayaa oo gantaalkaas ayaa qaybo kamid ah Ukraine imika ku celiyay mugdi iyo qabowgii hore heerkulka ayaa imika maraya hoosna uga degay celceliskiisa eber halka 32 digrii centigrade-na ay ka sii hooseeyaan ugu yaraan 4 qof ayaa lagu dilay weerarada Ruushka sida uu sheegay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky isaga oo intaa ku daray in ilaa iyo 70 gantaal intooda badan la soo riday shaqaalaha tamarta ee Ukraine ayaa mar hore bilaabay ayuu yiri ka shaqaynta soo celinta sahayda korontada ayuu yiri madaxweynaha dalkaas Ukraine Volodymyr Zelensky dhanka kale wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay weeraray 2 saldhig oo ciidamada Ruushku ay ku leeyihiin magaalooyinka lagu magacaabo Ryazan iyo Sarachova ay ku yaala koonfurta dhexe ee Ruushka halkaas oo ay ku dileen 3 askari 4 kalena ay ku dhaawaceen iyada oo 2 diyaaradoodna waxyeello ay soo gaadhay baa la yiri markii dhulka la soo dhigay ciidamada Ruushku ay halkaas ku soo rideen wixii kale daawada ka soo cusbanaada muuqaaladii dambe ayaad ku daawan doontaa qodobka soo jiitana commentiga noogu reeb nabaday